السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود دمانتين بأد ياد بني السلام يا ميل كستاد أدونك دعلي سكتشوكتان لما الصومالي دون أد باو السلام يا سلام كبعدي ودوديني فلقين تأرمها سياسة الصومالية كسو دوادة الدودة ودوديني أرمها سياسة الصومالية سو دوادة داود يال دمانتين بأ سو دوادة dadka yaa iska leh dalka yaa iska leh yaa waa doodii falaqaynta arrimaha Soomaaliya weey daawadayaal dhammaantiinba soo dhawaada si shargareeya like-ta iyo share-tana yaa laga ilaawin qaybta page-kana maxamed qoob page isagana like-ta iyo follower-ka ku dhufta xagga kale ee YouTube-ka maxamed qoob channel isagana subscribe-ta iyo like-ta yaa lala waayay waa doodaha arinta dooda falaqaynta siyaasadda Soomaaliya aawad ogtiin dalku meeshu marayo iyo xaaladiisa iyo arrimihiisa wada la socotaan nina loo sheegi maayo loo sheegi maayo soo dhawaada daawadayaal waxaan haynaa arrimo aan inaba aan caadi ahayn oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya ku saabsan doodina waxay ku saabsan tahay waa falanqaynta arrimaha Soomaaliya siyaasadda soo dhawaada daawadayaal dhamaantiin soo dhawaada insha Allah afar ku soo dhawaada page-ka maxamed qoob page-na like-ta iyo follower yaa laga ilaawin inta ka bacdi waad ogtiin dalku meeshu marayo waa wada ogtiin waddanku wuxuu ku sugan yahay waad ogtiin mucaaradka iyo arrimahooda waad ogtiin waa la socotaan meeshii xaaladdu maraysa Soomaaliya caawa waa la wada socotaan horta marka koobaad ilaahay baa mahadle marka labaadna ciidanka xooga dalka Soomaaliya gorgor iyo harabcad baa mahadle sababtoo ah waad ogtiin dadkii dibadda laga riixayay oo Kenya iyo Imaaraadku dibadda ka riixayeen in ay mataqaana ay ka hortageen waad ogtiin waad la socotaan waad ogtiin ninkii oran jiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadaladiisi maanta waxa kamid ahaa kow waa su'aalaha isweydiinayno su'aasha labaad isweydiinayno waxa weeye ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya yaa hadalkiisii iyo arrimihiisii iyo hadalkiisii ajendayaal kamid ah su'aalan ka soo saarnay insha Allah waxyaabo badan baan falanqeynaa hal soo dhawaado hal soo wada gaaro soo dhawaada daawadayaal dhamaantiinba waad ogtiin xalayto ilaa iyo maanta mudaharaadka ka socday ee magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya horta maanta madaxweynaha Soomaaliya wuxuu joogaa guul buu joogaa mucaaradkina way fashilmeen gabigoodaba way fashilmeen fashilu baa ku dhacay saad la socotaan General Yusuf Maxamed Siyaad indha cadde waatuu xalayto labadii habeenimo uu soo dhigay aduu ka hor ilaa 7 habeenimo waatuu soo dhigay micnaha ciidan soo dhigay Muqdisho dalada wada jir waatuu soo dhigay General indha cadde been inii sheegi maayo xalayt waatuu hadaladiisa waxaa kamid ahaa yaa in uu isagu si ahaantiisa ciidanka meesha u soo dhigay cid soo dirtana aysan jirin waa tii ay kamid ahaayeen hadaladiisu wuxuu kaloo uu sheegay in wax dowlad la yiraahdo oo jirtaba aysan jirinba General indha cadde taasuu sheegay maxaa ka raacay haddaba su'aashiis weydiintana waxa weeye maxaa ka raacay inuu labadii habeenimo ay xalayto inuu sii daayo
marka ciidanka gorgor iyo haram cad iyo mataqaanin dee maaragta ay saa waddankii ay la wareegeen kuna fashilmeen indha cadde wuu fashilmo. marka su-aalo badan baa inay haynaa daawadayaal, soo dhawaada dhammaantiinba, soo dhawaada soo dhawaada. soo dhawaada daawada dhammaantiin soo dhawaada soo dhawaada. su-aalo badan baa inoo yaala, dalka wax iska weydiinaa loo baahan yahay in aynu haddii dhalinyaro nahay aynu siyaasadda falaqaynteeda iyo arrimaheeda aynu eegno oo waddanka soomaaliya xaaladiisa aynu la soconno waa fiican. markaa booska dhalinyarnahaan aynu ka qaadano siyaasadda iyo arrimaha iyo howlaha guud ee dalku sugan yahay. dalku wuxuu dhalinyaro u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in mataqaanaa dalka iyo aynu maaragtay ka muuqano, dhalinyarta soomaaliya ka muuqdaan baa loo baahan yahay. cabdiraxmaan cabdishakuur musharaxa la yiraha cabdiraxmaan cabdishakuur waad ogtiin wuxuu sameeyey maanta. isaga iyo khayre kabihii bay ka carareen, kabihii bay ka carareen markii ay saa banaanbix iyagoo hogaaminayo oo mataqaanaa saa u hogaaminayo calanka saale, calanka soomaaliya saale sidaa u taagaya ya oo saa u hor socda shacab yaroo ay mataqaanaa lacag usoo qaybiyeen oo mataqaanaa maaragtay inta lacag soo siiyeen ay dheheen mudaharada ya waa gorgor iyo haramcad dhagagagaga xabad bay dabad usoo qateen, dabad xabad. bismi illaahi araxmaan iraxiim. daawadayaal soo dhawaada marka saddexaad mar afraadba bagekana like saara iyo flow insha allah. cabdiraxmaan cabdishakuur maanta waa tuu hadlay, hadalladu ka hadlayna waa ogtihiin iyo suu hadlay waad la socotaan. waa tuu lahaa micnaha waa tuu lahaa cumar finish warkiisaan sugayaa. waa tuu cabdiraxmaan cabdishakuur uu lahaa rooble warkiisaan sugayaa. waa tuu cabdiraxmaan cabdishakuur maanta lahaa cali guudlaawe warkiisaan sugayaa. ya haddaba way hadleen, way hadleen. waxaana hadlay yaase hadlin. rooble hadlay, ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya rooble baa hadlay. hadalkiisi maxaa ka mid ahaa? haddaba waxaa ka mid ahaa meelo badan horta hadalkiisu taabanayay, meelo badan buu hadalkiisu taabanayay. ra-iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la fariisto midowda musharaxiinta. hadaladiisi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha inuu diyaar u yahay in uu la fadhiisto midowda musharaxiinta. kow, wuxuu ballan qaaday tabashada ay tabanayaan mas-uuliyiinta inuu xaliyo. mas-uuliyiintaas micnaha maaragtay mucaaradku waxay tabanayaan in uu xaliyo oo diyaar u yahay buu ra-iisul wasaaraha maanta khudbadiisii ka mid ahayd. waa labo. haddaba maxaanu iska weydiina, maxaase mataqaanaa looga baahan inu isfalanqeyno oo mataqaanaa maarata inu iska weydiino inagu shacab ahaan waxyaaba badan baa iska weydiinayna. haddaan ku noqdo indha cadde, jenaraal yuusuf maxamed siyaad indha cadde haddaan ku noqdo ya waa tuu lahaa cid haba yaraatay iyo wakiilatay aniga maba jirtaba. markuu dalada dahsoon markuu yimid waa tuu yidhi cid uu wakiilatay ma jirto, cid mas-uuliyadda lahna ma jirto waa tuu yidhi. haddii ilaahay kuu roo yahay. haddaba indha cadde xaguu ku dambeeyey saaka markii mudaharaadku saaka dhacay oo khayriya ay hogaaminayeen iyo bahalkii iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ya oo ay yaacayeen oo cararayeen oo kabahoodii ka carareen
ya kabood number 4 laga soo qaaday mucaaradka xagee uu soo ku dambeeyay janaanay dhacday labadii habeenimo waxa la ka guuray talada daljir kowdhaha markaa daawadayaal soo dhawaada wixii su-aal iyo qabaha soo dhawaadeen kusoo dhawaada falanqeynta arrimaha siyaasadda lagu soo dhawaado midowga africa daba muxuu ku baaqa midowga africa iyaguna waxay soo saareen arrin xasaasiya soo saareen midowga africa waxay sheegeen inaysan ciidamada nabad ilaalinta amisom inaysan dhex gelin xaaladda ka taagan magaalada muqdisho oo ay u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda kow sidoo kale waxay sheegeen in la amray ciidanka amisom inay ilaaliyaan ammaanka meelaha ay ku sugan yihiin sida fiila soomaaliya fiila soomaaliya haddii lina ka baarmi waaye bay dhaheen waad adeegsan kartaan awooddiina qaramada midowga africa baa soo saaray caawa ajendaha iyaguna marka daawadayaal soo dhawaada waxaa kaloo isna maanta hadlay cali maxamed geedi waad ogtihiin khudbadiisii iyo suwa hadlay la wada socotaan marka soo dhawaada daawada dhammaantiin waxaa kaloo wararku nagu soo gaarayaan in mucaaradkii caawa ay mataqaanaa ay caawa finish u dhamaatayba inay u dhamaatay way fashilmeen mucaaradkii caawa fashiluu baa ka dhacday haddii ilaahay nin roon yahay wax maanta loola haray mucaaradkii ma jirto hooyo hoostii geli baa ka dhacday mucaaradkii caawa maanta ra-iisul wasaarahana xasan ra-iisul wasaare rooblana khudbadiisii qiimaha iyo qaayaha badnayd aada iyo aad ugu mahadsan yahay waa waxyaabaan wax iska weydiin doono insha allah waa falanqeynta arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho caawa waxaan ka hadlano insha allah hala soo dhawaada daawadayaal dhammaantiinba meel kasta ad joogtaan sina shargale leegtana saara waad ogtihiin abdiraxmaan cabdishakuur ya waa tuu lahaa micnaha marka maxaa wadanka dalka soomaliya maxaa u dan ah maxaase dowladda soomaaliya mataqaanaa aad maaragtay fikrad ahaan iyo tala ahaan aad kusoo kordhi lahaydeen maadaama ad dhalinyaro tihiin maxaase su-aalaha inaan caawas weydiino maxaase inoo banaan maxaase inoo banaanayn dalka waad aragtaan meeshuu marayo siyaasadda meesha marayso waad la socotaan farmaajo dhuuntaasaa loo galay cunahaasaa la qabtay meel kasta waa lagaga mudaharaaday mucaaradkaasaana waxaas dhan ka dambeeyey kenya iyo meesha la yihahdo iyo maraadkana ka dambeeya ya marka hadii ilaahay idin roo yahay qofki raba ina soo qabto mataqaanaa arrintiisa ka dhiibto iyo maaragtay iyo fikradiisa waa soo qabanana daawadayaal ha degdegnina weli mataqaanaa maaragtay dadkii ma wada imaan weli barnaamijka suwac inaguma wada furmin
marka shaydaan baa degdega howlo badan baa inoo yaala waa arrinta siyaasadda dabagal waxa weeye dabagalka siyaasadda falanqeynta dabagalka siyaasadda baynu caawa wadnaa insha allah haddii lahaa idmo jenaraal yuusuf maxamed siyaad waad ogtiin caawa meel ku sugan yahay indha cadde ninkii ciidanka watay waxaa mataqaanaa maaragtay afkisaa u taagayo lahaa waddanka anaa cidna waxba ka weydiin maayo dowladdu way dhacday oo dowlad shaqaynaysa ma jirto waa kan lahaa ya kabtiisii kilomitr lambar 4 bay taallaa wax usoo qaado laaya ulle ciidamada gorgor iyo haramcad indhaba caadi maaha inaba hee caadi maaha dawadayaal soo dhawaada dadku ay soo wada gaadheen su-aalo badan baa inoo yaala falanqeyn badan baa inoo taalla marka insha allah soo wada xaadiro leefka haddaynu furnay haddaynu soo galnay arrimaha falanqeynta siyaasadda soomaaliya ya hala soo dhawaada waad ogtihiin xaaladda muqdisho caawa in ay degan tahay waad la socotaan muqdisho caasimada dalka soomaaliya caawa way degan tahay meeradaha iyo meel kasta caawa way shaqeynayaan mucaaradka way fashilmeen sidii ay doonayeenna way noqon weydi kow dheh bejka hoy hala falow gareeyo hala leg gareeyo maxamed qoob bej saa ugala socotaan arrimaha siyaasadda falanqeynta insha allah ee dalka marka soo dhawaada daawadayaal soo dhawaada soo dhawaada soo gaareen xaaladda soomaaliya waa la socotaan looga sheekeyn maayo mucaaradkii maanta way jabeen xasan cali khayr waad arkayseen carar ka dhacayay abdiraxmaan shukur waad arkayseen sugu ordayey ya marka waad la socotaan waa lagu soo qabanaya degdegii saaxib qof kasta fikraddiisa waa noo muhiim saaxib maha dowladda waa taageersanahay waayo wax dhaama ma jirto dowladdaas wax dhaama ma jiraan assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته daawade soo dhawow kuna soo dhawow arrimaha falanqeynta siyaasadda dalka soomaaliya أروى دوهي بحال الله دوهي صاحب أنا ودوهي أبدأ أنا محسن تحي يا سياسة الصومالية حتى كده وحول الله الله وأسكدر قدع سما هاني وبكرة أتكلم ما قرأت saaxiib waad ogtahay in mataqaanaa hawshu meesha marayso iyo xaaladda soomaaliya waxay ku sugantay waad ogtahay mudaharaadkii maanta dhacay iyo maxaad micnaha wax fikrada maxaad nagu soo biirin lahayd iyo aragtiya hadda mudaharaadku waxa weeye adduunka horta mid baan kuu sheegayaa adduunka sharciyad baa ka jirta qaab mudaharaadad u dhacaan baa jirta waxa weeye systemka dawliga la diidan yahay qaab lagu diidaa jirta ma garata sax dowladda Soomaaliya waxa weeye dowlad curdun ah wadankan in badan baa maxaa la yiraahdaa cid walba ka shaqeysanaysay ciddii timaada waxay rabto ka dhex sameeysay maanta Soomaali way isu tagtay oo dowlad bay dhisatay wax macna bay samaysteen dastuur bay samaysteen waxbay ku heshiiyeen haddii maanta marka ay timid dowladnimadii ay adigu qaab macnaha dowladnimada u socotay doorashadii dib u dhac iyo wax ku yimaadeen waxa weeye wada hadalkii socdo miiskii wada hadalku ilaa hadda uu furan yahay wax halaysan maanta qori caaradii sababi kara aysan jirin oo sababi kara arintaas in lagu kaco aysan jirin in inta nin mooriyaan ahaan jiray uu soo dhaqaaqo uu afarta wiilo cabdibilayaal iyo wata iyo BKM iyo dhishikayaal saariin baabuurta iyo daba jeexiyo
uu yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada soomaaliya horteedaan tegayaayo waddooyinkaan xidhanayaado inaan mudaharaadaan rabaayo anaa amnigayga suganaya wax adduunka ka dhaca waxaasi ma ah kuuriyada waqooyi baysa ka dhicin hadda ma garata daawad waa mahadsan tahay boqolka boqol aad iyo aad waa umahadsan tahay su-aasha kaloo raba inaan ku weydiiyo waxaa weeye rooble ra-iisul wasaare rooble maanta wuu hadlay maadaama uu hadlay wuxuu sheegay in mataqaana uu diyaar u yahay in maaragtay musharaxiinta inuu la fadhiisan doono maxaa arrintaa ka qabtaa inuu diyaar u yahay micnaha inuu la fadhiisto nimankan mudaharaadaayo ee qaylqaylinaayo ee maxaa la yidhaahdaa waddamada shisheeye wataan imaaraadka iyo balaayada wadda ka wada lacagta loo soo qaybinaya garowga lagula soo heshiiyey wax walba halkaa lagu soo dhameeyey la yidhi dowladda sidii loo majaxaabin lahaa ha laga shaqeeyo oo sababta deni iyo axmed madoobe ay u maqan yihiin maanta ay ahayd warinta 19 naga maqnaada shirka ka maqnaada anaguna aanu banaanbaxayaga fushan 20 imaada hadda ma garata hadhowna ku gorgortama dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed baa diidan hadda ma garata sax baa la rabay inay ku gorgortamaan nimankan oo la yiraahdo hadhow beesha caalamka dhahan nimankan ma u jeedin 19 bisha February wixii xamar ka dhacay marka waxani waxa weeye waa horta wax iska cad fargelisheeye weeye mucaaradkan iyo ra'iisul wasaaraha miskiinka inuu wala fadhiisanaya xataa uma qalmaan kuwan in la fadhiisto they don't even fit to have a meeting waxa weeye in lala kulmo nimankan lala fadhiisto uma qalmaan siyaasad in lagala hadlana uma qalmaan waa failures waa spoilers waa qasoodayaal la sideedaba waxa weeye talaabo sharciga un baa laga qaadaa si kale lagu xalin kara malaha marka intaasan kaaga jawaabaya walaal indha cadde xalayto general Yusuf Maxamed Siyaad indha cadde xalay watuu ciidan keenay taalada daljir aad iyo marka maxaad watii maanta labadii habeen uu ka guuray oo uu iskaga tegay waatuu xalaytana uu sheegay in waddanka aysan dowlad ka jirin waddanka wax dowlad la yiraahdo aysan kaba jirin waddankana uu meeshan u yimid mataqaana uu amniga sugayo maxaad arrintaa xalayto uu ka soo baxay indha cadde mataqaana uu ka dhawaajiyey maxaad ka odhan lahayd arrintaa waxa kaliya aan ka odhanayaa waxay tahay horta ninka la yiraahdo generaal maxamed yuusuf indha cadde waxa weeye ilaahay amarkiisa waa nin hadalladiisu ay horseedaan guuldarro waxa weeye waagii maxaakiimta la xasuustaa wixii uu ku qaaday ee hadalkii uu yiri Puntland markaan ka soo jeesanana Addis Ababa ku tukanayna oo isla maalinkii xigtayba ay Itoobiya iyo ciidamadii Puntland iyo Cabdullaahi Yuusuf iyo ay cagta mariyeen oo maxaakiimtii guuldarradeedii ayuu wuxuu ka ahaa number 1 xalayna hadalka dawladdu ka qaaday dulqaadka maxaa la yiraahdaa dulqaad la'aanta dawladdu ku riday de wax adduunka aan ka dhicin ah in inta madaxtooyadii la hor fadhiisto la yiraahdo anaga la wareegnay halkan la wareegnay ya 2021 waxa weeye wax lala yaabo weeye guuldarradiisa iyo hadaf xumadiisa siyaasadeed iyo in macnaha nin failure uu yahay bay cadeysay annaga ninkan waxaan hadda haddii Soomaali maanta la yiraahdo qabiil iyo maxaa la yiraahdaa heer diidan anigu kuwan hadda waxa sameynayaan ku beel ah ma garata waan gartay maanta laga yaabo waxa ay meesha aan ka aaminsanahay hadafka aan ka aaminsanahay waxa ay wadaana waa aniga ku sheegay ma garata sax marka ummadda Soomaaliyeed dawladnimo deeqda qabiil ma deeqdo odayga qabiilaya afar dhishi ka wata inuu meel ka qaylqayliyo ma deeqdo niman siyaasadda ku feelgaroobay oo waddanka la soo tijaabiyay oo waxay yihiin la soo arkay xasan sheekh shale markuu madaxweynaha ahaa warqad buu soo saaray xilligan camal markii la joogo wuxuu yiri 10 qof meel isugu imaan karto sax 10 qof haday meel isugu timaado wariya ciidamada nabad sugidda ayaa maxaa la yiraahdaa rafacay maantana wuxuu leeyahay isagii baa waxana xamarku waxay dhaan tooka bitooka wax la yiraahdo weey ma garad sax waan gartay in walba maalinkiisa qabsanaysaa dawada aad u mahadsan tahay saaxiib takror haweenaan ku weydiiyo waxa weeye Cabdiraxmaan Shukuratu maanta hadlay hadaladiis waxa kamid ahaa mataqaan uu u baahan yahay inay hadlaan uu kana warsugayo sida raggu magacaabay Rooble iyo Guudlaawe iyo mid kasta hadalkiisa u baahanahay Rooble hadlay maanta Rooble wuxuu ku hadlay waa dhageysto marnaya hadalkiisii iyo khudbadiisii ra'iisul wasaaruhu
maxaad masleedahay kuwa kalena waa hadli doonaan oo siduu roobla dowladda mataqaana u taageeray bay kuwa kalena u taageeri doonaan dowladda mise waxaad leedahay waxay la soo safan doonaan kuwa kalena waxay la safan doonaan qaar qayb kamid a mucaaradka la safan doonaan maxaa arrintaa naga odhan lahayd horta waxaan kuu sheegayaa meesha system dowladeed baa jira systemka dowliga ahana qofka ka tirsan kuma shaqeeyo fikir qabali ama fikir hebel baa walaalka haddii halkaa lagu jiidayo dowladdu waxa weeye oo laga xaq leeyahay waxa weeye sinaba uma raaci karto nimankan system dowladeed ay ka tirsan yihiin systemka dowladdaana waxa weeye dad bay ku matalaan waa sax waxaa nimanka uu magac dhaweey wuxuu ka raadinaya waa beerlaxawsi siyaasadeed iyo inay iyaguna haddii maanta ay dowladda banaanka ka istaagaana dowladda systemka dowliga haddii banaanka ka istaagaana loo dhutin maayo ma garata sax ninkii maanta ka baxa systemka dowliga waxaad leedahay wax kasta way yeelan karaan baad leedahay micnaha qayb mucaaradka taageerta iyo qayb dowladda taageerta way yeelan karaan baad leedahay mise sida khayre bay iyaguna xagga dowladda taageerayaan labada dood baa kula weydiina sax waa bini aadan way yeelan karaan laakiin sida hadda xogahan helayno ma aha wax jira ama hadda la filayo inay dhacaan ma aha ma garata sax ninkan yara qoorqoor oo kale wuxuu ka yarxumaaday hadalkii maalintii ninka la yiraahdo cabdullaahi farmaajo uu ka horjeediyey baarlamaanka ahaa waxaan deni baa soo qorqortay oo kale u xanaaqay adigu wada hadal baa u socda hadda isagii madaxweynaha iyo hawsha iska dhamaanaysa ma garata awalna maxaa cabdullaahi farmaajo garabkiisu inuu meesha tago marka waxaan political alliance baa la dhahaa bahasha qabiil ma taagna maanta siyaasadda waxaa la yidhaahdaa iskaashi siyaasadeed baa la yidhahdaa ma garata sax kuwan maanta qaylinaya nimankaan raba inay beerlaxawsadaan beri koobiya ka waraabin maayaan si fiican su-aasha kale sax raba inaan ku weydiiyo waxaa weeye adoo mahadsan boqolkiiba boqol dawadayaashana waynu soo qaban doonaa wixii raba fikradooda inaanu mataqaanaa dhiibtaan waad helaysaan iska suga su-aasha kale raba inaan ku weydiiyo waxaa weeye midowga africa wuxuu ku dhawaa midowga africa ciidamada ilaalinta amisom inay midowga africa wuxuu ku dhawaaqay micnaha in ciidamada ilaalinta amisom inay mataqaanaa aysan dhex gelin xaaladda ka taagan magaalada muqdisho maxaad arrintaa ka odhan lahay dhexdhexaadna inay ka noqdaan waxa weeye horta midowga africa isagu waxa weeye missionka uu ku joogo iyo hadafka uu ku joogo waa qorshe nabad ilaalineed ma garata sax haddii maanta ay yidhaahdaan waxaanu la safanaynaa dhinac ama aan raacaynaa dhexdhexaadnimadooda iyo joogitaanka waddankooda ayaa waxay gelaysaa qiilqiil ma garata waan garta waddanka uma joogaan iyagu inay codna cod ka dhigtaan hadafka ummadda soomaaliyeed waxa ay ku midaysan tahay in lala dagaalamo ummadda soomaaliyeed cadow u aragto iyaguna cadowna u arkaan ma garata sax dowladda soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed maalinta isku raacaan nimankaas inay cadow yihiin ummadda soomaaliyeed kusoo duulay oo sida argixisada loola dagaalamo in loola dagaalamo maalintaas baa iyaga waru furaya ma garata inta ka horeysa waxay ku khasban yihiin inay dhexdhexaad ahaadaan inay balansiga ilaaliyaan ayay ku khasban yihiin iyo nabadgelyada wixii looga baahdo ay fuliyaan si dhexdhexaadnimo ah ma ahaane marnaba taas kumana fadhiyo lagumana fadhiyi doono inay nimankaasi dowlad iyo mucaarad isjiidanaya ay kala cid u heliyaan sax marka waa kaas walaal sida kale midowga africa wuxuu sheegay in meelaha amisom ay ku sugan yihiin in ay ciidamada amisom meelaha ay ku sugan yihiin ilaaliyaan sida filo Soomaaliya oo kale mis leedahay arrintii xalaytu mucaaradku ay wadeen oo ahayd ay u socdeen banaanbax iyo in waddanka ay qallaasa geliyaan kadibna ay ugu soo marsiyoonayaan sida ay kula wareegi lahaayeen ciqaab dowladda ciidamada amisom haddii ay iyagoo maadaama filo Soomaaliya ay mataqaanaa joogaan ay ku sugan yihiin way ka difaaci lahaayeen oo way ilaalin lahaayeen filo Soomaaliya misleeda hadday dhici lahayd lacalaba in waddanka ciqaab ka dhaco why not sharciyada ay ku joogaan iyo damaanad qaadka nabadeed ee waddanka maxalliga ka hayaan ayay ka mid tahay filo Soomaaliya ma fahanti sax filo Soomaaliya waa xaruntii ummadda Soomaaliyeed amisom baa waardiye ka haysa ciidan Soomaaliyeed baa waardiye ka haya waxa weeye cidna looma ogolaanayo cid aan sharci ku geli mayso صح صاحب سؤاشي وده بسبب كويدينيا dad badan baa ma ogtahay maaragtay sugaya inay goona leef ka hadlaan firdooda ka dhiibtaan aad baynu u mahadsan yihiin falaqeynta dowladda siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha ka jira maanta caawa Muqdisho shacabka ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Muqdisho maxaa oran lahayd wax fariin maxaa u dir lahayd wax baaqa shacabka reer Muqdisho waxaan dhihi lahaa horta dad nasaba goob ah dowladnimo jecel dulqaad badan weeye
fariinta u diray waxay tahay shacabka reer muqdisho waad ogtihiin nabadda aad haysataan maanta halkaa lagu joogo xamar lagu wada joogo wixii laga soo maray cid idinka xoogaalsan wixii dhibaato dad soo gaadhayeen dhacayna idinka unba idin soo gaadhayeen wixii maxaa la yidhaahdaa intifaaceedana idinkaa leh ilaashada gacmaha isqabsada ka fogaada nimankaas iyo qaswadayaashaasna ka fogaada faraha kala baxa ha u dhawaanina mucaarad iyo muxaafid waxa weeye maanta waddankan wuxuu u baahan yahay isku duubni siyaasadeed in la si wada jira loo wada maxamed cabdullaahi farmaajo maalinta uu doorasho qaban waayo waxa weeye filla soomaaliya ma joogayo maalintaas soomaaliya oo dhan baa ka gara helaysa laakiin iyadoo heshiis siyaasadeed lagu yahay la saxiixi rabo doorasho bilaaban rabto in la maanta qaskaas la bilaabo daasmiinas faragelin shisheeye war iska cad wey waa ku salaamaya saxiga mahadsantahay boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsantahay shacabka iyo saad mataqaanaa doodaada iyo barnaamijkaaga aad iyo aad ugu mahadsantahay saaxiib gacaliye aad baan ku salaamaya daawadayaal dhammaantiina soo dhawaada waa dooda falaqaynta arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya ku soo dhawaada bejka maxamed oo bej ana falowgareeya like iyo sharena u dira insha allah arrimahan ka sheekayna caawa waxa dalka waa ogtihiin meeshuu maraya xaaladu meesha marayaan waa falaqaynta dooda siyaasadda dalka soomaaliya weeye hawluhu meel fiican bay noo marayaan inaynu dhalinyaro ahaan maadaama inagu aan dhalinyaro nahay waddan kastana waxaa mataqaanaa hogaamiye ama leadership u ah waa dhalinyaro dhalinyartu inay wax iska weydiiyaan arrimaha dalka soomaaliya inay waxbarashada wax iska weydiiyaan inay waddanka wax iska weydiiyaan in ay wax kastoo jira ay wax iska weydiiyaan oo xiriir sameeyaan waa loo baahan yahay waxay u dhaliyana waxaa weeye micnaha in mataqaana caawan leefka soo galo waxaa weeye in maaragtay dhalinyarta aan la wadaago arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho iyo wax maxaa inoo dan ah ummadda shacabka soomaaliyeed 30 sano ya 30 sano bay kusoo jireen dhib way kusoo jireen qax bay kusoo jireen dhibaato badan maxaa 30 sano oo soo socda ya maxaa inoo dan ah ma in mataqaanaa waddankiina aan iskaga tagno dadkii beelaha ku baaba'aan qurbaha la kala galo waddankii baaba'o oo maalin kasta qof mataqaanaa mucaaradaho dowladda horumarkeeda kasoo horjeeda oo dad mataqaanaa ay taageerayaan waddamo kale in maalin kasta mataqaanaa maaragtay aanu u daba nacablayno waa laga qurux badan yahay arrimaha wax la iska weydiiyo arrimaha bulshada wax la iska weydiiyo arrimaha siyaasadda dhalinyartu doorkeeda ha ka qaatin hala falanqeeyo qof kastooba fikradaada iyo mataqaanaa iyo taladaada soo jeedi nalana soo wadaag waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol soo dhawaada aad iyo aad u soo dhawaada gamcan furan ku soo dhawaada haddii laynii roon yahay taladiina iyo fikradiina bulshada soomaaliyeed u bandhiga inagu waxa wax iska weydiina waxaa weeye isbuucii lasoo dhaafay isbuucan lagu jiro waddanka soomaaliya xaaladiisu xaggee maraysaa waa su-aal loo baahan in laisweydiiyo waddanka soomaaliya arrimihiisa xaggee marayaan maxaase ummadda soomaaliyeed ya haddaynu dhalinyaro nahay booskee baynu u geli karnaa uguna jirnaa adduunka waad ogtihiin hadda jaynahoo kale wiilka yaroo inagayna la eg ama inaga yar wuxuu ku fekerayaa si mataqaanaa waddankiisa wuxuun ugu soo saari lahaa ilaa hadda intu noqoto qalin buu ku fekerayaa soomaali waxay ku fekeraysaa mataqaanaa in qofkooda maaragtay wax taraya ama maaragtay baraarujinaya ay mataqaana kasoo horjeestaan in qofka wax tar leh inay kasoo horjeestaan in qofka bulshada u shaqeynaya kasoo horjeestaan inay xaasiskooda yihiin marka arrimaha laga waantoobo waddanka iyo dadkeena aynu horumarino aynu adduunka la jaan qaadno aynu dooda siyaasadda falaqaynta soomaaliya kasoo qayb galno oo aynu fikradeena ka dhiibano waanu soo qabanaya saaxiibayaal suga aad iyo aad u mahadsantihiin waa ku soo qabanaysaa waa ku soo qabanaya soo dhawaada dhammaantiinba qadar fikram cali dheer waa ku soo qaban lahaa saaxiib dee waxbaa kaa yaro xun
page hala follow gareeyo hala like gareeyo mucaaradka waxyaabo badan baa ka leeyahay mucaaradka waxaan dhihi lahaa hal mid baa mucaaradka odhanaya caawa mucaaradka waxaa odhanaya dalka yaa la burburin dalka ha loo turo maatada ha loo turo arrimaha bulshada iyo danta bulshada dib ha loo u eega iska daaya micnaha suma wallahi haddii xilligaa la gaadho haddii February la gaadho saasaa sameynana iyo sidan baa yeelana hala joojiyo iskana daaya sideed February horta way dhicsoodi maanta waxaa xalay damacsanaydeen ama aad doonayseen horta waa uu dhicsoodi filinka baa cunay kow dheh bal maxaa soo wadan haddana waxaa kala soo wadaan baan eegaynaa sida kale waad ogtihiin oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta waa tuu lahaa mudaharaadku wuu sii soconaya waa tuu lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku hanjabay cid mataqaanaa maaragtay uga xun ama uga daranna ma jirto sidii maanta un baad kabaha ka cararaysa oo kilometer 4 kabaha wacaa ay yaalaan buuga cararaya marka daawadayaal dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhawaada ilaa mar kasta ilaa fadlan soo galay waa arrimaha dooda siyaasadda baynu ka hadlanaa mar kasta waan soo qabanayaa saaxiib soo dhawow صحيح هودا ka xun baan marinaya oo soo qaban lahaay marka dawlad waxay u baahanahay in mataqaanaa maartay aynu arrimaha bulshada iyo arrimaha Soomaaliyeedba dhalinyaranahay aan waajibaadkina ka soo baxno waajibaadkina aynu gudano mucaaradka mid baan leeyahay oo laba leeyahay oo saddex baan leeyahay wadanka qaska laga daayo war farmaajo wallahi billahi tullahi madaxweyne Soomaaliyeed oo wadanka uga fiican ma jiro madaxweynaha dadka loo maqlan biya xaatro hadda ma maqashaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuu ku saxan yahay 100% suu dalka u maamulayo iyo sida mataqaanaa meel kasta mucaarad looga kiciyey iyo mataqaanaa loo kicinayo oo shacabka loogu kicinayo iyo sida mataqaanaa wadankiisa markasta ugu heelan yahay soo dhaw khadar soo dhaw assalaamu calaykum waraade maxamed oo salaam waan ka qaaday daawada horta aad iyo aad baan ku salaamayaa rahmatullahi wa barakaatuh saaxiib qali aad iyo aad baan saaxiib ku salaamayaa soo dhaw way maqashaa waan ku maqlay may maqashaa adigu saaxiib waa dhowahay haa waa ku maqlaa maxaa doodeena horta ku soo dhaw marka hore dooda falaqaynta arrimaha siyaasadda bulshada saaxiib waa ku dhowahay waan arkaa si wanaagsan baa barnaamijka wataa si wanaagsan baad u daadihinaysaa runtii dee waan soo dhawaynaynaa wax loo baahan yahay dhalinyaradu inay siyaasadda falaqeeyaan aragtidooda ka dhiibtaan dadka wacyi geliyaan ma garat waan garta khadar maxaa waa wax loo baahan yahay wey saaxiib khadar waad ogtahay maanta mudaharaad baa ka dhacay magaalada muqdisho mudaharaadkana waxaa hogaaminaya mucaaradka Soomaaliya baa hogaaminayay sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Cali Khayre iyo adigu mucaaradku dhan baa hogaaminayay mudaharaadka maxaad ka oran lahayd niyahow kolley de wixii maanta dhacay Soomaaliya oo dhaweey arkaysay ma garatay sax qof walba waxa la indhihiisa shacabku waxa leeyahay codka kor u qaada mana maqashaan miya waa ku maqlaa ها ما برا وحي ما أنت دعوة لأركي ده شعب كي سومالياتنا هرت ميت بعض نقول بليان يا وحلا رنتي بيفهمين دنتي بيفهمين ما أنت نوحي مقدسة السعودية ولا أركي ده شعب كي حتى وحيسة تست الدولة لماذا دوسة تست ما قرت وانقرت ده وارت وحلي إني والبحلي إني سو معلنا ما أنت وحنا أركي إني وحلا كمان كمان كرا والله صدق قف أنا أركي إني ده كمان هذي أي ولي يعلم ودوني ما قرت
waa ku salaanay saaxiib mida kale niyo anigu hal mid baan oran lahaa maanta waxaan oran lahaa niyo dadka muqdisho jooga dantiina garta dantiina waxay ku jirtaa raggan maanta idila jooga ee musharaxiinta sheeganaya waa 12 nin oo isku qabiil ah hadda ma garat waa 12 nin oo isku qabiila 12kii kun 12kii khadar sax waan ka yara dhex galo inagu arrinta ka hadlaynay qabiil ma ahayn waxa weeye arrin ah siyaasad falaqaynta siyaasadda ka hadlaynay qabiil inagu ka hadli mayno marnaba marka taa la soco maya maxamed meye saaxiib waa ku maqlasan maxamed saaxiib maya waxaan ka eeg Soomaaliya horta wax hadda lagu doodiyo qof walba markaad aragto wuxuu leeyahay waa qabiil laakiin maanta waxa kaliya shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya waxa weeye runtii way fahmeen sax hadda ma garat 12 nin hadday wax dhisayaan nin walba hore loo soo tijaabiyo runta marka la isku sheego Sheekh Shariif shalay waan ogeyn xasan Sheekh waynu ogeyn wuxuu dalka u qabtay ma jirto maanta wax lagu xasuusto bal garan maayo qofka waxba lagu xasuustaa lagu qiimeeyaa maanta hadda farmaajo waxa lagu xasuustay 6 bilood ee wadanka uu qabtay bal dadka dhan ay ku jeclaaday kaliya hadda ma garat marka kulli maanta wixii meesha ka dhacay wax khaldan bay haayeen shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay arrinka ka waantooba idinka u dambeynaya dhulkiina raggan baasaboorro kale wada wataan caruurhoodii waxay wada degan yihiin ka ugu dhow Turkiga degan yahay caruurtiisa oo jaamacada ka dhigta marka anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed Muqdisho jooga war nabadiina ka taxadiraan leeyahay oo u bataan leeyahay oo isku bataan leeyahay oo waxa kale halka fariin uga diraya aniyo idii tarmaysa dad aan nabad maanta Muqdisho waxay ka dhacay walaalkay report يا wadato waynu aragnaa hadda ma garat waa filin la doonaya in lagu inda Kenya lacag ugu soo bixisay sidii farmaajo u bixi lahaa badana khalkhal loo gelin lahaa sax dawaka ogtahay ra'iisul wasaare Roble inuu maanta hadlay waad ogtahay maadaama uu hadlay wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la fariisto midowga musharaxiinta arrinta maxaad ka oran lahayd ra'iisul wasaaruhu uu ka dhawaajiyay niyo waa arrinta ra'iisul wasaaraha wax lagu farxo waana arkayay ma sha Allah ra'iisul wasaaruhu waa nin aad u caqli badan runtii waxa ka horeysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka horeeyay hadal ay jeedinayaan ay leeyihiin waa inuu soo hadlo ra'iisul wasaaruhu waa inuu gudoomiyaha gobolka soo hadlo waa inuu qorqoor soo hadlo waa inuu guud loo soo hadlo bal eeg hadda inay arrintu qabiil tahay taasoo ku cadeynaysa wuxuu ka reebay labadii maamul goboleed kale ka reeb mid ku darsoomay wuxuu og yahay Cabdiraxmaan wuxuu og yahay micnaha in Puntland iyo mataqaana iyo Jubaland micnaha inay walideed mataqaana dawladda mucaarad ku yihiin way arrintooda ay sawir meel fariisan buu og yahay maya isagu waa kuwaas wuxuu leeyahay yani anigu sidaan u fahmay qof walba uu fahmay kuwaas wuxuu leeyahay kuwaas waxay u dhasheen Muqdisho u dhasheen waan gartay koonfur galbeed baa jirta Puntland baa jirta Jubaland baa jirta muu soo hadal qaadin su'aasha kuma marka ra'iisul wasaaraha waa ku faraxsanahay hadalku jeediyay ma sha Allah marka aniga waa soo dhaweynaa ra'iisul wasaaruhu si wacan buu hadlay waa nin nabad jecel waa nin dalka u hoggaansan waa nin waxay nabad u tahay shacabka la dareemay wax walba ma garat si fiican su'aasha kale rabaa fikra inaan ku weydiiyo waxa weeye saaxiib ra'iisul wasaaruhu wuxuu kula sheegay inuu tabashada ay qabaan mas'uuliyiinta inuu xalin doono ma kula tahay ra'iisul wasaaruhu tabashada ay qabaan mucaaradka ama ay musharaxiintu ay qabaan inuu ra'iisul wasaaruhu xalin doono ma kula tahay aad sababta niyo Soomaaliya waxa loo baahan yahay wada hadal weeye dadku inay wada hadlaan marka la wada hadlo wax la isku afkartaa laakiin nimankan wada hadal saaxiib ma ogola waxa maanta dawladda halka keenay ee lagu dhaleecaynaya 8 February way dhaaftay waa iyaga cagaha runta marka la isku sheego maantana waxa la doonayo waxa weeye mudaharaadka lama diidana dadka Soomaalida baa iskaga khaldan saaxiib Soomaalidu waxay ku leeyihiin mudaharaad baa loo diiday hebel mucaaradka mudaharaad nabad wata xagee lagu arkay beebayaal saaxiib dhinacyada ka marayaan
mudaharaadka ku shacabka waad kaliya ogtahay inuu mataqaanaa madaxweyne inuu fasaxay mudaharaadka kadibna mas-uuliyiinta maaragtay musharaxiinta oo ay haddana ay si kale wax u raadiyeen oo arrin siyaasadeed meesha ku jirtay maxaad ka odhan lahayd ها يجا محمد صاحب يجا بشاقي لما كان ليه أور وحقريانا ملها سياستنا موتان مسكحنا موتان هم باوعانه waan garta يجا مظاهرات يكون مدول بميديا سوي استاجي فرماتو halkaasaan ugu tagaynaa waan soo qabanaynaa madaxtooyada wuxuu mahad salaadniki lahaa habeenkii madaxtooyada loogu tagayaa daaqada lagu garaacaya marka waxaan shacabka Soomaaliyeed masaakiinta wax magaratada iyo maatada iyo dumarka waa la iska horeysiinayaa hadhow dacid waxa la ogaanaysan dawladda shacabka layneen xabadayneen marka dadkan waxay rabaan waa foodo iyo qalalaasi iyo filla Soomaaliya si ku tagi lahaayeen albaabkeeda waana lagu fahmay barnaamijka General Yusuf Maxamed Siyaad wuxuu sheegay in oo ku magac dheer inta cadde wuxuu sheegay in mataqaanaa uu wato xalay yimid taalada wato yimid wada jir ciidan keenay watuu yiri micnaha dawlad ma jirto micnaha hadda wax dawlad oo la yiraahdo ma jirto buu sheegay cid mataqaanaa isaga soo adeegsatay ama tiri meesha tagna wuxuu yiri ma jirto maxaa isaga oran lahay arinta niyo kallay waa de waxa weeye waa ilka abeesa Soomaalidu waxay yiraahdaan ilka abeesa hoos bay ka xidhiidhsan yihiin ninkan hadda maanta nasiib xumada haysata nimankan waxa ilaalinaya waa dawladda weeye generaalku xuma qabanaya runbaa wacan ragii waaweynaaye u dhashay xamar maanta qurbaha wada jooga waan aragnaa dhib iyo dhibaatay maleegaya nin walba xulay halkan ciidan toogan niyo waxa de ku go'ayana waa shacabka anigu aaminsanahay inagu maanta qurbaynu joognaa waxba nama soo gaarayaan nabad baan haysanaa waxbarashaan haysanaa caafimaad laakiin waxa kaliya ee qof walba ka gubanaya waa shacabka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeedna waxaan leenahay dantiina fahma walaa in dacdaana waxba idin wadin walaa khayraana waxba idin wadin nimankii shalay wax idin qaban waayay maanta uma leeyahay inay wax idin qabanayaan dagaal niman dagaal ogayaal doonayaan shacabku meesha ku go'aan dayay maamulayaan hadii maanta shacabkii ay dilaan sax khadar saaxib aad buu maasan tahay maxay kula tahay doorashada Soomaaliya mustaqbalka dambe doorashada Soomaaliya maxay noqon mid sidee aad kula tahay inay noqoto aragtiyan maxaad ka qabtaa saaxib insha Allah doorashadan waxaan aaminsanahay hadda si wacan bay ku socotaa insha Allah ilaahayna saax ku wado waxa kaliya ka maqan waa inay dadkan wax fahmaan baa kama isleedahay farmaajo macaadku xoolaha xal u iman karaa wastahmi doona mas'alada ها haddii sidan hadda wax lagu wado wax laga bedela ha way iman kartaa saaxiib hadda sidan wax lagu wado waa si qariban waa si dalka iyo dadka aan lagu turayn laakiin haddii mucaaradku waad aragtay xukuumaddii waa maanta hadashay war wixii wada hadal u baahan waa la gelaynaa bay dhaheen anigu waxaan aaminsanahay farmaajo wada hadal waa ogolyahay rooble laakiin inta tanashishay faraha ay kula jiraan wadanka ciidama hagaagaya saaxiib maxaad ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama kuwa ku daawanaya ha ahaato ama kuwa xamar ha ahaatee maxaad wax fikrada ama talaa u soo jeedinahay walaal horta kuwa halka jooga de waa ognahay kuwa qurbaha jooga waxaan leenahay niyow dalka ha iskaga ciyaarina nin walba hooyadii baa joogta aabihii baa jooga ayeeyadii baa joogta walaaladii baa jooga waan gartay hadda ma garat waxaan leenahay intaad masiibada iyo maaragtay shayga qaxa iyo kuleelka lacag ku bixinaysaan dawladnimadiina lacagta ku bixiya oo isfahankiina lacagta ku bixiya kuwa dalka jooga soo haray kuwa dalka jooga waxaan leeyahay idinka dalka jooga maanta idinka nabad u baahan runbaa wacan dawlad baad haysataan nabad baad haysataan xamar sidee wallahi sanadkan u dhisantay maxamed qodob weligeed lama arag marka daawanayso wallahi waa naxaysa quruxdeeda marka waxaan leenahay هذا سؤال كمان هذا سؤال ما صنع سؤال كلا ربنا كودي وحوي مدارات ما أنت دعي وأكتهي شعبك وحي الشيء إن مدارات كأي قعمش شيء اللي كتشرن يعني فرقليش شيء اللي كتشرن مش المسيح هاي في قدام حد يعني ليه هاي وارم وأنا مسنا عنه ذبك أم تشمبا كتير صاحب صح ما قرأت sababtoo aniga waxaan de dalka waxaan faracada maanta waa arkaysi maxamed oo waxa soo baxay waxaan islahaa nimankaas haday dad wataan muqdisho maanta waa ceermaysaa maanta laakiin waynu arkayna waxa soo baxay waa 9 nin oo musharaxiintiya iyo 20 carruur ay haayeen laba maamo صح hada ma garad dadkii way fahmeen $60 la siinayay way fahmeen noloshii way fahmeen nabadii way fahmeen
marka mudaharaadkan oo wax dana shisheeye wataan oo la doonayo in airportka wadarkiisa maanta waxbaa lagu riday waxa ku ridaya waa madfacyada waxa ridaya waa mucaaradka way runbaa wacana waxaa la doonayaa in dadkan degan qaramada midoobay ha ahaadaan inay wadanka iskaga qaxaan oo wadanka la iskaga dhex baxay rabaan nimankan oo hadhowna dee ay wadankii iyo ciidankii wixiina isku go'aan markaan waxaan aaminsanahay saad ii weydiisay way ku jiraan gacmo shisheeye way ku jiraan kama madna iyagaa dana shisheeye wada dada shisheeye u adeegayaan intaasoo dhan waan aaminsanahay saa cabdiraxmaan shukuur maanta markuu hadlayay wuxuu sheegay in reportka micnaha inuu qayb gubanayo micnaha markii aanu wareysanay ama dad ka dhow aan wareystan waxaa ogaaday markiiba in mataqaan wax ka jira aysan jirin arrintaa markasta mucaaradku rabaan inay faafiyaan oo been ah ama mataqaanaa maaragtay bulshada u daran ama bulshada lagu burburinayo maxaad ka odhan lahayd mucaaradka hadii waxaan leenahay niyahow dalka innagaa iskale baan leenahay mucaaradka dalkuna hadda si wanaagsan buu ku socdaa maadaama iyagu waadaami dalka maxamedow raggan oo dhan dalka way soo xukumeen ma garat sax maanta cabdiraxmaan cabdishakuur cid ammaanaysa oo le halkaasuu waddo yar dhagax dhigay lama garanayo ma garat iyagana si lamid cid maanta odhanaysa maanta xasan sheekh maxamuud baa maanta waddadaa dhisay lama hayo ama sheekh shariif hataa marka iyagu waxaanay kasoo horjeedaan waa nabadan iyo quruxdan iyo magaaladii iyo dadkii iyo qalalaasaha waxa lagu beriya waa dadka inuu waxaan leeyahay sircaadiya la rabaa oo waxaan quruxdan iyo dalkan dee dawladdu ay dhisay in wax kale looga dhigo loo burburiyo la bahla geliya la rabaa la yidhaha lacagtii waa la cunayaa maanta waynu aragnaa miisaaniyadda dawladdu meesha maraysa bilyan bay maraysaa bilyan khadar waad ku maasantay su-aasha uga jawaabtay qiimaha sharafta lahayd 100% iyo sidaad ugula wadaagtayba arrimaha falaqaynta arrimaha siyaasadda midowga Afrika waxay ku dhawaaqeen in ciidamada AMISOM ay safaragelin xaaladda ka taagan magaalada Muqdisho maadaama ay soo saareen midowga Afrika ay badhow ku dhawaaqeen arrintan soo saareen waxa oran lahayd midowga Afrika arrintan waxa fikrad waxa ka qabtay ama bulshada aad ku caawin lahayd talahaan tusaalaan ay soo saareen saaxiib waa su'aal wanaagsan saaxiib runta marka laga hadlayo midowga Afrika iyo waxaan oo dhan waa dadka doonaya inaysan dalkeenu uusan saaxiib horumar gaadhin hadda ma garat AMISOMta lagu sheegay saaxiib waa rag waxay qabtaan ma jirto runta marka la isku sheego xalanay fadhiyaan xalana mid walba $1,000 iyo cunto fresh ku cunaya maanta inuu dalku gubto iyaga dambaa u jirta saaxiib run baa wacane bari ka tagi maayaan waa loogu darayaa markay dalkeena maanta wuu dhismay markaynu iska burburino oo aynu nabadeena faraha ka saarno iyagu way sii joogayaan lacagtooda qaadanayaan run baa wacane marka iyagu waxay doonayaanba waa in dalkan uu burburo al-shabaabtii baa hadda ka dhamaatay dalka intii u badnayd waxa la doonaya waxa weeye waa inuu dalka AMISOM dan baa ugu jirta saaxiib marka la sheego ha xalanay fadhiyaan waxa ma qabanayaan lacagtooda qaadanayaan mishaarkooda unbaa u soconaya iyaga haddaynu inagu guryaheenu burburino oo nabad ayna helin oo airport ayna helin oo bad ayna helin oo ilaha dhaqaalaha dhan iska iyagu weligood inagaa beri al-shabaab isku bedelayna run baa wacane marka runtii iyagu way ku saxan yihiin nin walba dantiisu arkaa anigu maanta waxaan u leeyahay yani kuwan way khaldan yihiin dawladdu way saxan tahay waa dantaydaan arkaa anigu maanta cid u danaynin maayo cid aan qabiil ku taageeraya ma jirto dadku waan arkay dad badan oo la qabiil iyo waxbaa ku taageeraysaa waa kan madaxweyne wallahi kan horta dadka sidooda waxa moodayaan laakiin nabadda waxaan hayn annaga nabad baana deeqdo shacab bay nahay shacab Soomaaliyeed hooyooyin baa dalka ku nool dad wax ma haysataa baa ku nool dad waxa ku nool dan yara arday baa ku nool in la barakiciyana khadar aad iyo aad basaan maasan tahay sidoo kale qaramada midowga Afrika waxa la midowga Afrika sidoo kale wuxuu sheegay in ciidamada AMISOM inay adkeeyaan ammaanka meelaha ay joogaan sida fiila Soomaaliya ma isleedahay haddii tusaalahaan xalay hadday dhici lahayd in mucaaradku mudaharaadka ay wadeen in ay inqilaab ku bedelaan oo ay madaxtooyada rabaan inay qabsadaan midowga ciidanka AMISOM madaxtooyada ilaalinaya ma isleedahay way difaaci lahaayeen madaxtooyada maya saaxiib laakiin mid baan ku hayaa maxamedow niyow ciidanka Afrika wax la isku haleyn kara ma iyagu waa ragga doonaya inay qalalaasahan iyo wadanku burburka ku jira waa ragga de lacagta askariga Soomaaliya ma waan ogahay laakiin minaha waxa eeganay waxa ka midowga Afrika buu ku soo baxay minaha may sameeyeen laakiin maanta waxaynu kaga nasiib wanaagsanahay shalay sidaynu ahayn 2016 maanta ma nihin
maanta dawlad adag baynu leenahay ciidan baynu leenahay ciidan lagu seexan karo lagu kalsoonaan karo daacada maanta ciidanka Soomaaliya hadii la eego maanta baan ka daacad badin walahi ma jirto khadar marka waxba Afrikaan yaa la isku halay Afrikaan dan ku haya ma jirto waa Kenyan baa ku jira Kenyadii ku soo abaabulisay ragga ku jira waa cid ku shalay Afrika dawladeena burburisay marka cidna yaan la isku halay anu ma aaminsan Afrika maanta dalka wax ka qabanaysa ma aaminsan ninoona ku seexan ninoona ku soo toosay ciidamada aamin ciidamada taageer niyada u dhis garab istaag oo intaas khadar waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa tuu yiri qubadiis maanta waxaa kamid ahayd inuu yiri waxaa rabaa ra'iisul wasaare khayre ra'iisul wasaare hore khayre oo ay garab taagan yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa arkiis isku garab taagnaayeen ra'iisul wasaare Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan Cabdishakuur hadalkiisa waxaa kamid ahaa inuu yiri waxaan u baahanahay inay hadlaan Ali Guulaawe Rooble inay hadlaan baa u baahanahay hadalkoodana sugaya micnaha xasan Rooble hadlay hadalkiisa qubadiisa wada ogtahay soo hadlay qubadii ficiladu ra'iisul wasaare uu jeediyay kuwa kale hadday hadlaan waxaa isleedahay mucaaradkay soo raaci doonaan qayb kamid ah mise sida ra'iisul wasaaraha runta waxay ka hadli doonaan iyo dawladda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed maxamed waa su'aal wanaagsan saaxiib oo mahadsan tahay maya anigu ma aaminsan Soomaali waxa la yiraahdaa wadar iyo waaxid yaa waaran baa la yiraahdaa ma garat ninkaas Cabdiraxmaan Cabdishakuur saaxiib maanta waxaan uu ka hadlayo ma aha yani dawladnimo ah nagu soo dhaxgalaa ma waa qabiil weeye saaxiib dawladana waxa la doonayaa in waji qabiil loo yeelo la doonayaa run marka la arko Soomaali dad waaweyn bay nahay oo wax walba fahmaya oo wax walba Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta haduu sax ka hadlayo oo wax dhaxgal rabo saaxiib maamulo shan maamul baa ka jira Soomaaliya saddexna kamu tageen saddexdiisana mu soo magacaabeen laakiin wixiba waxa burburiyay ra'iisul wasaaraha la khayr siiyay ninka nabadda jecel dalka jecel baa waxaan waa saaxiib waa qabiil baa la doonayaa in laga dhigo waana laayay waa kan iyo ununkaale iyo sheekaan loo joogin baa dalka la doonayaa khadar waa mahadsantahay saaxiib boqolkiiba boqol su'aalaha iyo sanad loo wadaagtay iyo fikradaada fiicanba in mataqaana dhalinyartu mataqaana ay isweydiiyaan arrimaha siyaasadda iyo ay falanqeeyaan oo dalka xaaladda ay la socdaan markasta maadaama dhalinyaro nahay waa loo baahan yahay meegasta joogno adduunka waad ogtahay dhalinyarta wax ka bedesha jil kasta waddan kasta waad ogtahay dhalinyarta ayaa wax ka bedesha waxna kusoo hordhisa haddii dhalinyarta aysan waddanka ka warhayn dhibaato badan bay leedahay taasaan ka odhanaya khadarow maya maxamed waxaad mid baa ku darsanaya saaxiib yana xalleeyo hadal baad wadataa dalka saaxiib maanta waa saas sheegtay weeye maanta waxa adduunka wax ka bedela waa dhalinyaro run baa wacane maanta ka mudaharaadka loo isticmaalaya waa wiil dhalinyaro waa gabadh dhalinyaro waa maanta dawladda isqarxinaya waa wiil dhalinyaro waa gabadh dhalinyaro waynu wada aragna hadda ma garat maanta waxa dalka burburin kara waa dhalinyaro waxa dhis kara waa dhalinyaro odayaashan wada baasaboorada wata ee cimrigoodiba soo laasay saaxiib waxba dalka u qaban maayo bari waxa sii joogaya hadduu ilaahayna daayo waa naga khadar saaxiib aad iyo aad buu mahadsantahay dawlad badan baa ku daawanaya dawlasha aad baa u salaamana markasta aad ma iyagana waa siinaya dhammaantiinna waa salaamaya khadar su-aasha kale ku rabaan ku waxa weeye Puntland iyo Jubaland waad ogtahay iyo mataqaanaa maaragtay in ay marar badan isfahmi waayeen dawladda isfahmi waayeen farmaajo isfahmi waayeen maxaad wax baaqa iyaga u dir lahayd iyo how Puntland iyo Somaliland kulley ummadda Soomaaliyeed waxba kama qarsano run baa wacan qof walbana waa arkaa laakiin dee waxay gudayaan iyo waxay tarayaan maanta Soomaaliya nin wax gashado u baahantahay nin wax ka qaado looma rabo ma garat maanta Soomaaliya waa guri la dhisay weeye haddii gurigii markii la dhisay nin walba uu dhagax la baxo ama jiingad la boodo dee qorraxdii iyo roobku way ku duminayaan ma garat marka Jubaland iyo Puntland dadka shacabka waa dad dawlad jecel runtii waa dadaan ognahay boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay laakiin labada nin ee maaragtay shay aan la fahmin waxa u socdaan kulley waxa la dawladdu waa shacab saaxiib waxaan leenahay in shacabow dantiina garta iska qabta ninka idin qarribaya iska qabta maanta hadday xamar ay burburto
wax maamul oo okay Ethiopia ma khadar jira su-aashii ugu waddanka dambeysay baa waa saaxiib inaan ku weydiiyo maxaad oran lahayd mucaaradka mucaaradka waxaa leeyahay ah hadday lacag ay dhegeystaan mucaaradka waxaan odhan lahaa dalka ka daaya foodada dalka dad baa iskale dadka dal baa eeganaya maanta nin walba wuxuu ka diwaan gashaya waddan shisheeye baasiboorkiisa wataa waddankaasaa lagu tiriya oo ka tirtaya sax soomaali maaha soo ma ogid marka nin walba baasaboorka haystuu tirsadaa waxaan leeyahay niyo waddanka dad baa leh masaakiin baa ku nool dad danyaraa ku nool ganacsata dalka ha burburinaan leeyahay intaad wax ku qaban lahay ee iskaga soo noqdo dalalkiina usoo noqdo waxaad qabanaysaana ma jiraan hana burburinaan leeyahay intaan khadar aad iyo aad u mahadsan tahay kaasna wuxuu waa khadar oo fikradiisa arrimaha falanqaynta siyaasadda nagula wadaagayay aad ba saaxiib kuu salaamaya waa ku salaamay saaxiib adiga asxaabtaada oo mahadsantii saaxiib qaali kaasna wuxuu waa khadar oo nala wadaagayay fikradiisa arrimaha falanqaynta dooda siyaasadda soomaaliya daawadayaal soo dhawaada mar kasta waxaan ku jirna waxa weeye barnaamijkii arrimaha falanqaynta soomaaliya iyo mataqaanaa xaaladda soomaaliya wuxuu meesha ku sugan tahay caawa meesha hawluhu marayaan waa ku mahadsantihin intay garanaysa intay garanaynba soo dhawaada in leeyahay aad baan ii salaamaya shacabkayga dhammaantiinba wixii raba in lasoo qabto waa lasoo qabanayaa waad ogtihin xaaladdu meeshay marayso mucaaradku waxay wadaanba iyagii bay la go'day iyagii bay maanta la go'day dam kabahaygi meeye baa ka dhacday waad la socotaan marka soo dhawaada inaynu mataqaanaa dalkii dadka wax iska weydina waa loo baahan yahay daawadayaal haddaan usoo noqdo mucaaradka mid baan leeyahay war waddanka qallasaha laga daayo waad fashilanteen maanta hooyo hoosta igale baa ka dhacday haddii aan ii rooya waad ogtihiin oo waddankan 30 sano buu baaba shacabkani ku noolaa shacabkana dantoodii maanta garteen dantoodii bay maanta shacab weynuhu garta wayna ku mahadsan yihiin madaxweyne farmaajo waxaan odhanayaa madaxweyne guulayso waan ku taageersannahay haddaanu shacabka nahay haddaan dhalinyarta nahay taageero buuxdaan ku haynaa aad iyo aad u weyn marka waynu soo qabanayaa saaxiib dhammaantii intaad doonaysa waynu soo qabanayaa arrinta falanqaynta siyaasadda bejka maxamed oo bej hala falowgareeyo lagna hala saaro waxaad kala socon doontaa arrimaha bulshada waddanka soomaaliya iyo siyaasadda falanqaynta siyaasadda waad kala socon doontaan insha allah haddii lahayd sax waa kusoo qabanaya soo qabanaya soo dhawaada waxaanu ka hadlna waxa weeye falanqaynta arrimaha siyaasadda dalka qof kasta oo muhiim weeye fikradaada iyo mataqaanaa iyo maaragtay inaad soo bandhigtid dhalinyarnimo ahaan waa loo baahan yahay 100%. وعليكم السلام gini aad basaac salaanta kaga qaaday dhamaantiin waan islaamaya daawadayaal meel kasta kala joogtaan dunida dacaladeeda waxaan leeyahay soo dhawaada doodu waa inoo socotaa doodu awooda saaxiibka xun baa maray soo qaban lahaa sorry waad ogtihiin xaaladdu meeshii marayso kusoo dhawaada daawadayaal arrimaha falanqaynta dooda arrimaha falanqaynta siyaasadda soomaaliya dhammaantiin waan islaamaya aad iyo aad baan ii salaamaya soo dhawaada daawadayaal saa waxaan kusoo qaban lahaa xoogaa jawada ka xumaanaya
dawadayaal dhammaantiiba aad iyo aad ba umahadsantihiin waxaan ku jirna waxaa weeye doodii arrimaha falaqaynta bulshada iyo siyaasadda dalka soomaaliya markastee mar walbaba iyadoo markasta soo gudbino wixii waddanka dhacay la soconno su-aal iska weydiino wixii jiraan wax iska weydiino waa loo baahan yahay xaaladaha lala socdo dhalinyar ahaan laga qayb qaato meesha ay waddanku marayo mucaaradka iyo muxaafidba waxaan leenahay dalka yaala burburin siba mucaaradka waxaan leenahay dalka yaala burburin war dalka ha loo turo war waxaan leenahay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ya si wacan buu u shaqeeyey si wacan buuna hawshiisa u wadaa hala garab istaago shacabka mid baa kula talinaya inay madaxweynahooda garab istaagaan oo ay dhinac istaagaan baa loo baahan yahay wiil yaroo mucaarada oo mataqaanaa maaragtay waddamo shisheeye ay dabada kasoo riixayaan looma baahna maanta soomaaliya waa ka gudubtay xilligii mataqaanaa maaragtay waddamada shisheeye ay maaragtay mataqaanaa burburin jireen ama faro dadka ay wataan ay waddanka wax laga weydiin jiray way ka dhamaatay xasan sheekh baa u dambeeyey madaxweyne hore dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud baa u dambeeyey madaxweyne dambe oo shisheeye adeegsado waa kusoo qabanaya saa kusoo qabanaya dawada dhammaantiib aad iyo aad ba umahadsan tihiin barnaamijka nagala qayb qaadateen iyo dooda arrimaha siyaasadda sii shargareeya leegna saara committeena ka bixiya insha allah bageka maxamed qoob bagena hala follow gareeyo leegna hala saaro hala sii shargareeyo qaybta youtube-ka maxamed qoob channel hal like iyo commenty iyo subscribe hala saaro insha allah billahi kariim aad yaan idin salaamaya dhammaantiinba daawadayaal waana ku mahadsantihiin dooda iyo barnaamijka nagala qayb qaadateen caawa nagala qayb qaadanayseen iyo caawa falaqeynaynay iyo arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya aad iyo aad ba u mahadsantihiin mar saddexaad mar afraadba waxaan leeyahay ammaano allah iyo salaan qaaliya asxaabta dhammaantiinba meel kasta aad joogteen